basharka ilaahay abuuray waa shakhsiga ugu dulqaad badan, ugu naxariis badan, ugu dhibrinta badan, ugu xidhiidhinta fiican. haddii la yidhahdo qaraabo iyo dad ha la xidhiidhiyo waa shakhsiga ugu xidhiidhinta wanaagsan. hadday dulqaad noqotona waa shakhsiga basharka ugu dulqaad badan. hadday noqoto maaragtaane baarinimona waa shakhsiga bini aadamka ugu baarisan. hadday noqoto maaragtaane naxariisna khalqiga ilaahay abuuray waa ka ugu naxariis badan nebi maxamed sal alla alay wasalam. waa u sheegtay markaa deedna waa isoo kaxaysay inta soo sasabtay dhexdaa markay marayeen ila waa xaaskiisiiye oo isagu wuxuu isleeyahy waad qabtaayo waa xaaskaagiiye meelaha markay dhexda marayeen buu yar tamcayo deedna markaa bay ku tiri ha ii soo dhowaan. wuu yaabay oo waa maxay oo hiblaayo ma tihiin ha oo ninkaagi maanan ahayn ha oo xaaskaygii waan ahay laakiin ma tihin cikrimow adigu hadda mushrik baa tahay aniguna gabadh mu'minadoo muslimaan ho ima soo dhowaanaysid bay ku tiri. gabadh mu'minadoo muslimada ayaan ahay markaa ima soo dhowaan karaysid. iimaanku qalbigooga marka uu galo cidday xidhiidhinayaanna markaaba way garanayeen cidday